hoggaanka cusub ee qabsaday inuu ku sheegan yahay daraal oo madaalaba la yiraahdo waxaan u maleynayaa halbeegyada inuu wax badan ka dhalin doono xukuumadda barnaamijka ay geysay baarlamaanka dan qaranna waxay u bedeshay barnaamijyo aragtida madaxweynuhu uu lahaa ee Turkey mas'uuliyiinta halkan u fadhida safaaradda ka socota iyo hay'adda Turkey walaalayaal xilli dambeeyna joognaa min baynu joognaa hadal intii la oran lahaa waa la yiri 3-4 qodob ayaan dul istaagaya ugu horeyn waxaan rabaa inaan si buuxda ugu mahad celiyo gudoomiye Umar Maxamed Umar Finish oo intii aan xukuumadii hore ku jiray oo dastuurka ka shaqeynay arrimaha bulshada aanu si dhow wada shaqeynay run ahaantii gudoomiyuhu ma ahayne oday Soomaaliyeed buu ahaa isaga oo qadiyadaha iyo arrimaha gobolkan uu mudan yahay madal walba u taaganna waanu soo joogay waxa qabadkiisina maanta halkan uu inaga soo bandhigay taariikhduna way xusu doontaa waxaanu jeclaan lahayn dhamaanteen markaynu mahad celino adeega uu fidiyay magaala madaxda iyo gobolka Banaadir inta ka sokow dabcan gudoomiye Yusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo aan ku cusbayn xilkan soo dhaweyn iyo duco inaga muday in loogu duceeyo xilka culus halkan waxaan u maleynayaa malaaq uu ahaaye ninka xamar loo dhiibay iyo Banaadir waxba kama dhacin dalka maamul la yiri oo dhowr siyoodba de magaala madaxdu waa meesha kaliya caawa hadii dadka halkan fadhiya la eego dad reer Muqdisho uma badnee 18 gobol dalka dadkii ka soo jeeday baa jooga wax garadkii baa jooga baac mushtarigii baa joogta culimadii baa joogta saraakiishii baa joogta marka fursad aanu meeyar magaalo kale helin ayuu haystaa qofka halkan meeyarkii muunad Soomaaliya muunada ayuu ka shaqeynaa marka gudoomiyuhu waa kii shirabka inoogu tuuray horta shirabka waa fahmaa inaan tiriyuunba wax yar iga hadlay waxaan soo xasuustay 1970 goor aan u maleynaya ama 80 ayaa aboonkii weynaa Allah u naxariistay Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi oo dhawaan u geeriyooday ayaa xamar buu gabay u mariyay marka gabayga waxa la yiraahdaa xamar ee nabadba waxa kamid ahayd midhaha xuduntii dalkayga ay xaruntii dadkayga ay xamar ee nabadba xidigtii bahadeedii iyo xubnaheeda kala maqan u ahayd xasuustee sumadooda xaynkii iyo shanta gees ku xidhatay xamar ee nabadba laamaha xorriyadii iyo xayndaabka calankee xijinaya dhalashada xididkay ka beermaan hinjir laga waraabsheeyo waa 70 wuxuu ku dhashay abwaanku cirifka magaalada Burco Buuhoodle iyo inta u dhaxaysa baan u maleynayaa Burco gobolka Togdheer laakiin dhadhan iyo astaan gaar ah xamar u lahayd waayo badan bay xamar soo martay daartan kaliya ka turjumaysa taariikhaha la soo maray xilliyo ay ajaanib ka talinayeen xilliyo dimuqraadi lagu dhaqayay xilliyo nidaam military ay ku hoos noolayd xilliyo colaad sokeeye la galay iyo caawa aynu halkan joogno oo ay intaas soo meeyaro iyo gudoomiyaal isu soo dhiibayeen xilalka waxa hubaala maalinba maalinta ka dambaysa inay soo hagaagayso xaaladda dalka oo mas'uulka ka dambeeya wixii uu dhisay wax ku sii dhisi doono dhowr 20 kalaami ee uu dhameeyay gudoomiye Umar waxaan u maleynayaa 40 baa laga rabaa gudoomiyaha hadda xilka qabtayna waxaan rabaa inaan dul istaago bal dawladda federaalka oo ay magaaladan xamar iyo gobolkan uu martigeliyo oo ku shaqeysa aragtida ay ka qabto siyaasadda guud ee dalka oo saameynaysa maamulka halkan madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu halbeeg ka dhigay ama oraahda uu doorashada ku soo galay waxay ahayd Soomaali heshiisa dunidana heshiis la wuxuu kaloo ahmiyad siiyay visionkiisa
la dagaalanka argagixisada iyo in laga xoreeyo deegaanada Soomaaliyeed cadowga gacanta ku haya wuxuu kaloo isna xusay in la helo isku filnaansho dhaqaale iyo dib u heshiisiin dhaba horta intaas oo dhan meesha la rabo awalan in laga fuliyaa waa magaalo madaxda oo muunad u noqonaysa inta kale waxaan hubaa hoggaanka cusub ee qabsaday inuu ku sheegan yahay daraal oo madaalaba la yiraahdo waxaan u maleynayaa halbeegyada inuu wax badan ka dhalin doono xukuumadda barnaamijka ay geysay baarlamaanka dan qaranna waxay u bedeshay barnaamijyo aragtida madaxweynuhu uu lahaa waxa la rabaa markaa magaaladan Muqdisho amnigeedana in kaamil laga dhigo ka deegaanada ku hareeraysanna la sugo waa ogtiin dalka guud ahaan dib u xoreyn ba ka socota abaara ka jira colaadda meel badan ka jirta waxa muhiim ah halkan oo maanta aynu xil ku kala wareejinayno oo lagu dabaaldegayo sida gudoomiyaha uu xusay dalkan dad badan oo walaalaheena ayaa magaalada cidhifiyadeeda iyo inta ka shisheysaba caawa ku baahan oo abaar ba ka jirta waxa laga dhawaajiyay magaalada Muqdisho inay ugu dad baran tahay ugu hanti baran tahay hantida iyo curuda in dadka Soomaaliyeed ee baahan looga faa'iideeyo baa la rabaa gudida abaaraha ee xukuumaddu ay samaysay ee culimada ay ku jirto ee ganacsatada ay ku jirto waxa la rabaa bulshadeynta gobolkan ku dhaqanayo guud ahaan dadka Soomaaliyeedba inay la shaqeeyaan oo la gaaro dadka inta aanay xaaladoodu ka adkaantay hadda ku jiraan gudoomiye waxaan leeyahay wasiir Axmed Fiqi iyo mas'uuliyiin kale oo gudida ku jirta halkan fadhida waxaan rabaa arintaana inaan xaq iska ridno ummadda aanu gaarsiino dadka hal loo gurmado waxaa laga digayaa in qoysas ay abaartu xoolo tirtay oo beeruhu ay ka abaarsadeen in si joogto ah ay ula kulmaan barakicin qasab ah iyadoo aan loo fiirin duruufaha ay ku jiraan qoysaska barakaca ah goobaha iyo dhulalka ay degaan dadka milkiyadda u leh ama wakiilka ka ah waxaa la gudboon in si wanaagsan ay u soo dhaweeyaan qoysaskaas soo barakacay mar alaale ee loo baahdo dhulka ay degan yihiin waxaa habboon in waqti ku filan la siiyo oo u dhaxeeya 60 ilaa 90 cisho si ay u raadsadaan meelo kale oo ay degaan milkiile qayb ha ka noqon in barakacayaasha ay ku dayacmaan meelo bannaan ah